قال you mine قلبي قد كنت على every time قال you mine قلبي قد كنت على every time تمالك وين أني وان كايلة أورتادا ديل حتى لان كيلة خمس مكدير haddii aad channelka ku cusub tahay nagu soo biiro subscribe saaro gambaleelkana furo si ay kugu soo gaaraan muuqaal walba soo galo. sidana waxay ku dhacday maamo wayela oo xogaa xanuunsaneed maalmaha kamid ah maamadii xanuunsaneed ayaa waxaa la keenay isbitaal. maamada xanuunkeedana waxay ahayd cabsi badan iyo walwal badan ay qabtay sababtoo ah ayadoon wax dhibaataysan ayay cabsanaysaa way walwalaysaa maantana waxyaabo aan la arki karin ay sheegaysaa waxay leedahay waxaas xag taaganaga cabsiinayo waxana la markayo markii loo begi waayay maamada oo jiradana ku sii saaciday ayaa waxaa la keenay isbitaal. markii isbitaalka la keenay kadib waxaa lagu wareejiyay gabar kalkaalisa si ay xaaladeed ula socoto daawooyin ay u siiso mar walba. gabadhii kalkaalisada ahayd maamada ayaa la yaabtay sababtoo ah maamada mar walba waxay ahayd qof cabsideeda sayda koos hal mar xataa maysan faaxi jirin mar walba ay cabsanaysay meelaha darbiyada ay faraha ku taagi jirtay waxay dhahaysay waxay xagga taagan oo kale dadkana waxyaabahaas way ka aamini waayeen way ka dhibsanayeen sababtoo ah qofka waxay ahayd qof mar walba iska cabsanaya bis indhaha taagayo si qof la dili rabo kale. gabadhii kalkaalisadeed intay maamada la yaabtay ayaa xeel walba daawooyinkeeda intay siisay ay iskaga dhaqaaji jirtay. habeenada kamid ah gabadhii kalkaalisada ayaa waxay maqashay qeyli ka imaanaysa qolka maamada ku jirtay. gabadhii kalkaalisada intay soo carartay ayay qolkii maamada imaatay kadib waxay aragtaybo nalkeena shida ay isku dayday nalka markay shiday kadib waxay aragtaybo maamadii oo fadhiso sariirta aydan wax dhibaato haysan balse baqaysa oo gariiraysa waxaanaysay cabsi aan inaba caadi ahayn. aniga intaan la yaabay ayaan waxaan dhahay maxaa ku dhacay maamo markaas ayay waxay tiri walaalay soo ma jeedid waxaas xagga taagan aniga aad iga cabsiinayo fiirab waxaas xagga taagan ay dhibaya aniga waan ka baqayaa. kadib gabadhii kalkaalisa inta la yaabtay ayaa darbiga farta loogu fiiqay waxay dhahday waxaas gadaashaada taagan ayaa mar walba iga cabsiyo. gabadhi waxba maysan aamineen balse sheekada waxay bueg tahaybo wax inuuba jiro gabadhi gadaasheeda taagan yahay oo kale. gabadhii kalkaalisada waxaan inaysan aamin ay doqda ka raqaajisay albaabkana ay kor uga xirtay. qisadani waxay ku dhacday laba gabdho oo saaxiibo ah. labadii gabdho mid ka mid ah waxay kasoo tagtay magaaladii ay joogtay waxayna soo aaday magaaladii ay joogtay gabadhii saaxiibadeeda ahayd. kadib labadooda magaalka ayay ku wada kulmeen. labadii gabdho saaxiibada ah waxay ahaayeen dad muddo iskugu dambeysay kadibna waxay go'aansadeen inay waqti isla qaataan ay soo baashaalaan ee magaalada aadaan. labadii gabdhood siday u sheekaysanay iskula socdeen ayaa labadii gabdhood mid ka mid ah waxay dhahday waxaa jira guri qadiimi ah oo ku yaala magaalada geeskeeda marka haddana aadna ka baranba. gabadhii kale haya ayay dhahday kadib labadii gabdhood mid ka mid ah waxay soo qaaday toosh si haddii habeen loogu gaaro ay meesha ku iftiisadaan. labadii gabdhood siday u sheekaysanay ay u soo socdeen ayaa waxaa lagu gaaray habeen. habeenkii markii la gaaray ayaaba ayagana guriga imaadeen. runaantii guriga wuxuu ahaa mid aad u cabsi badan. kadib labada gabdhood ay gudaha usoo galeen gurigii. labada gabdhood mid ka mid ayaa waxay ahayd mid fulaya oo aad u baqaysa. runaantii guriga banaftirkiisa wuxuu ahaa guri aad u cabsi badan. guriga ayay fiirinayeen ayay wax kale raadinayeen. guriga runaantii wuxuu ahaa guri cabsidiisa saaid ay tahay. labadii gabdhood mid ka mid ah waatana guriga ayay ku dhex wareegaysaa. guriga waxaa ku dhignaayeen sawiro
sawir cunug yar, sawir maamo kale, dad lamaano, sawir aad iyo aad runtii sawirada xataa waxay ahaayeen kuwa xabsi badan. maraan miyaad meel ku taala aan fiirinaya waxaan ka arkay naag wajigeeda. armaajadana waxaa saarneed madax xayawaan oo qalalay iyo dhalooyin aad u maleysid inay ku jiraan dhiig iyo waxyaabahaas. runtii guriga xabsidiisu waa guri aad u xabsi badan. kadib ayaan lama filaan waxaan ku aragnay god iyo ku yaalaan cajo iyo gacmo oo god dadka ku dhex dhici jiraan lagu dhex ridiyo kale. kadib waxaan aragnay lugo oo aad u xabsi badan. intaan shoognay ayuu nalka naga dhacay ayaan wixii fiirinayna aan la naxnay. runtii waxaan oo kale weligeen baan arkay intaan ifka saarnaa. kadib markaan fiiriyay waxaan arkay sidii wax bahaloo kale oo weeg qof waayeeloo kale oo dhankeen u soo cararay. aniga aad ayaan u baqnay. wixii aqo intuu soo cararay ayuu wuxuu ku dhigay gabadhi saaxiibadeeda ahayd, mid ka mid ah labadii gabdho saaxiibaha ahaa. kadib wixii wuxuu isku dayay inuu godka u jiido, gabadhi kale waxay isku dayday inay badbaadiso, balse laakiin ayadoo isku dayay inay badbaadiso ayaa gabadhi kale wixii bahalka ahaa gacanta ka qaniinay. gabadhi kale xanuun dareedii saaxiibadeeda way sii daysay. sidaas awgeed saaxiibadeeda godka ayay ku dhex dhacday. gabadhi kale intay oosay ay si dhaqsi ah waxay ku wacday booliiska. abaay habeenkii saqdhex ayaa waxaa imaaday booliiskii. arintana meeshaas ayaa ugu dambeysay. Girl, you mine, qalbigaad ku taala every time. Girl, you mine, qalbigaad ku taala every time. Somali queen, ani waan kayle, hortada dheer, xagga laankeele, qamis makadiinka. haddii aad channelka ku cusub tahay nagu soo biiro subscribe saaro gambaleelkana furo si ay kugu soo gaaraan muuqaal walba soo bilow.